barasaabka gobolka Sanaag Maxamuud Cali Saleeman Ramax oo ka soo laabtay safar shaqo in muddo ah oo ugu maqnaa dhinaca caasimadda Somaliland ee Hargeysa ayaa waxaa si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Ceerigaabo. soo dhaweynta barasaabka oo mas'uuliyiinta dawladda iyo dadweyne kale oo aad u tiro badan ba iyagoo watay gaadiid fara badan ay kaga hortageen meel durugsan ayaa kolkii uu halkaasi soo gaadhay wuxuu barasaabku safsaf u salaamay madaxdii dawladda, madax dhaqameedkii iyo dadweynihii kale ee goobtaasi ku sugnaa. waxaana munaasabadaasi soo dhaweynta barasaabka ugu horeyn hadallo kooban ka soo jeediyay boqorada, salaadiinta, cuqaasha, guurtida, ganacsatada iyo xubnaha aqoon-yahanka oo dhammaantoodba afka bulshada ku hadlayay. maanta waxaan soo dhaweynaynaa gudoomiyihii gobolka Maxamuud Cali Hayste Ramax oo mutaystay inaan ku soo dhaweyno gobolkiisii madaxda ka ahaa isagoo maanta safar kaga soo noqday Hargeysa. waxaan leenahay haddii maalmahan aad naga maqnayd hadallo kala jeedjeeda ay naga yimaadeen waa arrinta aanu maanta isugu soo baxnay inaanu ka dhaqdhaqno oo ku muujino inaad tahay gudoomiyihii gobolka ee xaq ahaa. haddii wax kala jireen ka raali baan ku leenahay, haddii kalena waan wada saxno wadaan wada mareynaa maanta. waxaan halka ku soo dhaweynaynaa barasaabkii gobolka Maxamuud Cali Ramax oo jiray hadeer xagga iyo caasimadda oo galabta gobolka soo galaya. waxaan leenahay gudoomiye ku soo dhawow gobolkaagii madaxno maqnay oo aan sugaynay baad ahayd waana ku soo dhaweynaynaa. inta aad naga maqnayd haddii hadalla ama telefishinada ama dadka hadleena gobolku waa isku mid. waxaan sidaa loo sheegay soo dhaweynaynaa barasaabkii gobolka Sanaag Master Ramax in Cali Hayste gobolkaagii iyo degmooyinkaagii ku soo dhawow. haddii xoogaa hadalku naga kala jirayna haddaanu isu baacinaynaa soo dhawow. halka waxaa loo libo diyaar u nahay soo dhaweyno gudoomiyaha gobolka. waxaa loo leeyahay madana gudoomiye gacmo fura baan ku soo dhaweynaa haddaan nahay dadkii deegaanka ahaa ee gobolka Sanaag. gudoomiye gobolka oo maanta ka yimi caasimadii Hargeysa baanu ku soo dhaweynaynaa. waxaanu leenahay gudoomiye soo dhawow. waxaanu galabta halka waayeelkii gobolka Sanaag, sulaadiin, boqorro, qaal, aqoon-yahan, ganacsato dadku wadhan yihiin. waxaanu soo dhaweynaynaa oo dhammaantay annagoo midaysan isugu nimi inaanu soo dhaweyno gudoomiyaha gobolka Sanaag oo naga maqnaa muddo. waxaanu leenahay wixii hawlo inaga daadsanaana waanu urursanay. beeshu waa nabad, dadku waa mid qura. adduunyadana inta la jiro wax walba way dhacaan, wax walba dhacana waxaanu leenahay dad ka tashado oo wanaag ku dhamaystaanu leenahay. waa la wadaa. waxaan kaloo qayla dhaan u diraynaa wasaaradda caafimaadka ee Jamhuuriyadda Somaliland. waxaa ka dhacay gobolka Sanaag cudurkii la oran jiray jadeecada. dad ilaa 7-8 qof ayaa ku dhintay dhulka xeebaha. Ceerigaabo waa la jiifaayo dad waaweyn iyo ciyaal iyo cid waliba way ku dhacday. gubankana sidaas leeg waxaanu leenahay ha loo gurmado oo hal dawladdu ha soo gurmato. anuu ka wakiilan nabadooradii gobolka gudoomiyihii gobolka Sanaag Master Ramax waxaan ku soo dhaweynaynaa gacmo furan. gobolkana dhibaatooyinka laga sheegay waxba kama jiraan. adigu barasaab baad u tahay waana ku soo dhaweynaa. gudoomiyihii gobolka barasaabkii oo shaqo ugu maqnaa galbeedka gacmo furan baan ku soo dhaweynaynaa. waxaan u leenahay gudoomiye soo dhawow. halka waxaanu ku soo dhaweynaynaa barasaabka gobolka Sanaag Master Ramax oo ayaabaha nagaga maqnaa magaalada Hargeysa. ayaanu halka ku soo dhaweynaynaa si niyada oo farxad leh baanu barasaabka u soo dhaweynaynaa. daawalna halka uu joogo barasaab buu ka ahaa annagoo salaadiintii iyo boqorradii iyo madaxdii oo gobolka oo dhan wada joognaa. aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa. waxaan soo dhaweynaynaa gudoomiyihii gobolka Maxamuud Ramax. waxaanu leenahay gacmo furan gudoomiye. waxaanu nahay shacabkaagii oo ku soo dhaweynaya. halkan waxaanu ku soo dhaweynaynaa gudoomiyihii gobolka Sanaag Maxamuud Cali Hayste Ramax. waxaanu leenahay dadweynahaagii oo ku soo dhaweynaya waanu nahay waanu kugu kalsoonahay. falyatafadal. Maxamuud Cali Saleeman waxaanu kugu soo dhaweynaynaa salaan kale iyo laaba gobolkii Sanaag oo dhammaystiran. waxaanu ku leenahay midaan la hilmaaminoo haliyay qarana tahay soo dhawow gudoomiye. kuna habsaami mayno khilaafaadku annaga ku filan. waxa horumarkaad gudoomiye lagula dadaalaysaa. waxaan halka ku soo dhaweynaynaa maanta gudoomiyaha maamulka gobolka Sanaag oo muddo safar xarunta hawl shaqo ugu maqnaa. waxaanu diyaar u nahay dadweynaha reerga diyaar u yihiin soo dhaweyntaada gudoomiye. halkan aanu sidaas ku soo dhaweynaa ku soo dhawow gobolkaaga iyo dadkaaga iyo dalkaaga. gudoomiyihii gobolka waxaanu leenahay ku soo dhawow gobolkaagii gacmo furan. ku soo dhawow gobolkaagii ku soo dhawow dadkaagii. falyatafadal mashkuuran baan ku leenahay gudoomiye. taliyayaasha ciidamada asluubta iyo qaybta booliska ee gobolka Sanaag ayaa iyagana hadallo kooban oo halkaasi ka yiraahdeen. waxaa ka mid ahaa anoo taliya xabsiga ciidanka asluubta degmada Ceerigaabo. waxaan kugu soo dhaweynaynaa gobolka Sanaag. halkan maanta waxa ka dhacday soo dhaweyn fiican
waxgaradkii aqoonyahankii iyo dhallinyaradii dhammaan waa la isugu yimi haddii aan media ka maqlayseen waxyaalo taagtaaganna reer Ceergaabo wuxuudu waa dhammaystaan wixii jirana waa la dhammaynayaa aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa gudoomiyaha gobolka waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay maayarada degmooyinka Maydh iyo Fiqi Fuliye waxaan maanta si kaliya laaba u soo dhaweynaynaa gudoomiyihii gobolka Mr. Ramaax waxaan ku soo dhaweynaynaa salaan kaliya laaba gamco furan baan ku soo dhaweynaynaa gudoomiyihii gobolka gudoomiye gacmo furan ku soo dhawow dadkaagii waad aragtaa shacabkaagii oo dhan reer Ceergaabo halkaas ay ku wada tuban yihiin dhammaantood oo isku duuban soo dhaweyntaada aan wada taagan maayarka degmada Ceergaabo Ismaaciil Xaaji Nuur ayaa isaguna halkaasi wuxuu ka yidhi galabta halkan waxay isugu yimi salaadiintii waxgaradkii reer Ceergaabo dhalinyaradii maamulkii dawladda waxaan ku soo dhaweynaynaa gudoomiyaha gobolka Sanaag Maxamuud Cali Suleymaan oo leeyahay gudoomiye soo dhawow welcome ugu dambeyntiina barasaabka gobolka Sanaag Mr. Ramaax ayaa halka uga mahad celiyay madaxda iyo bulshooyinka kale ee soo dhaweysayba maayarka degmada Ceergaabo taliyaha ciidanka qaranka taliyaha qaybta booliiska saraakiisha kale ee heer gobol heer degmo dhowr maayar baa jooga salaadiinta boqorrada indheergaradkii waxgaradkii magaalada dhammaan aniga wada magacaabi karaynin aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa soo dhaweyntan aydan galabtay soo dhaweyseen anigoo hawl shaqo ku maqnaa waxaan filayaa insha Allah taala inaynu hawlahayna halkii ka sii wadan doono marlabaadna aad iyo macabahda saxaafadda aad baan idinku mahadnaqayaa intaasi kadibna barasaabka waxaa loo soo gelbiyay dhinaca gudaha magaalada Ceergaabo Cabdullaahi Xuseen Darwiish shabakada caalamiga Odweyne News magaalada Ceergaabo